Wardegdega faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaalkii ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maalinimadii shalay ahayd iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyo culus oo ciidanka daacaddu ah garabka lafta gareen ay doonayaan mar kale inay weerar ballaaran ugu qaadaan magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaan kugula wadaagi doonaa warbixintan dhaqdhaqaaqyada ka soconaya duleedka magaalada Baydhabo, ciidanka lafta gareen oo mar kale soo buux dhaafiyay magaalada Baydhabo duleedkeeda isla markaana xogaha ay tilmaamayaan inay isku diyaarinayaan weerar rogaal celis ah oo magaalada Baydhabo ay ku qaadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka warbixiyay wixii shalay ka dhacay Baydhabo, khasaarihii ciidanka lafta gareen ay gaarsiiyeen, tirada dhimashada oo kor u dhaaftay ilaa 60 qof oo labada dhinac oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah, dhaawacyada oo noqday kuwa xarkaha goostay oo badankood Muqdisho loo qaaday. Guud ahaan waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Baydhabo. Soo dhawaada daawada muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo haddii aad hore noola joogto ku maasantahay, haddii aad nala joogina nagu soo biro ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran. qaybta dambe waxaan kula wadaagi doonaa lafta gareen oo si kulul markaasi oo la yaab leh uga hadlay wixii shalay Baydhabo ka dhacay. وحقاق aynu ku hormarno wararka naga soo gaaraya gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kadib dagaalkii shalay halkaasi ka dhacay. waxa ay ku waramayaan in dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda halkaasi ku sugan iyo ku maamulka aadan madoobe ee huwanta ay sheeganayaan guulo waaweyn oo ay ka gaareen ciidankii lafta gareen. subaxnimadii hore ee shalay ciidanka lafta gareen ayaa si buuxda isugu fidiyay magaalada Baydhabo iyaga oo ka soo weeraray dhowr jaha oo kala duwan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay una suuro gelisay inay gudaha u galaan magaalada. meerihii ay soo weerareen dhammaan iyo dhinacyada ay magaalada ka soo galeen waxa ay isku fidiyeen ciidankii lafta gareen bartamaha magaalada Baydhabo ilaa Afar-Doodka halka lagu magacaabay iyo Xerajaad dhammaan aagagaas ay si buuxda ula wareegeen. laakiin ciidanka lafta gareen oo si habqan oo kala magaalada u galay ayaa waxa markii dambe ku soo rogaal celiyay ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa maamulka aadan madoobe, waxaana halkaas ku gaaray ciidankii lafta gareen jab aad u xoogan. in ka badan 30 qof ayaa maxbuus ahaan looga qabtay oo askartii u dagaalameysay lafta gareena. tirada dhimashada ee labada dhinac iyo dadka shacabka markii la isku daro ayaana waxa markaasi maamulka aadan madoobe iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay sheegeen in kor u dhaafayso ilaa 60 qof oo markaasi labada dhinac ay dagaalamayay iyo dadkii shacabka ah. dagaalkii shalay kadib wasaaradda gaashaandhigga afhayeenkeedu hadlay waxa uu sheegay in magaalada dhinacyo isuban markaasi ay weerar ku soo qaadeen ciidankii lafta gareenna ay markaasi qayb ka ahayn weerarkii magaalada Baydhabo ka dhacay, jab xoogan la gaarsiiyay. waxaana wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya ay wacad ku martay in lafta gareen hadda kadib loola dagaalami doono si adag oo ka duwan sidii markii hore loola dagaalami jiray. hanjabaadan ayaa markaasi ka dhigan in dowladda federaalka Soomaaliya ay hadda kadib adeegsan doonto awood kasta oo ay heli karto inay markaasi kula dagaalanto lafta gareen iyo ciidankiisa duleedka magaalada Baydhabo ku sugan, taasoo xaaladda ka dhigi karta mid sii cakiranta iyada oo magaalada Baydhabo isla shalay markaasi uu gaaray Xasan Eelay oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee waqtigiisu dhamaaday iyo xukuumadda dhacday oo markaasi uu ka yahay wasiirka xanaanada xoolaha. Xasan Eelay waxa uu qayb ka ahaa gulufkii military ee lafta gareen Baydhabo looga saaray, waxaana uu hogaaminayay ciidamadii buurha kaba ka soo baxay ee Baydhabo kala wareegay Cabdicasiis lafta gareen. shalay ayuuna mar kale sheegay inaan loo dul qaadan doonin magaalada in la soo weeraro, waxaana uu sheegay inaysan jirin ciidan lafta gareen oo magaalada Baydhabo soo weeraray, laakiin maleeshiyad magaalada Baydhabo ay soo weerareen hadda kadibna la hor istaagi doono si adag markaasi loola dagaalami doono. sheegashada Xasan Eelay ah in ciidan lafta gareen aysan magaalada Baydhabo soo weerarin ayay dad badan ku tilmaameen inay tahay mid xiisada sii hurin karta, lafta gareen iyo saaxiibadiisana ku qasbi karta in dagaalka ay sii wadaan oo weerar ka culus kuwii ay horey u qaadi jireen oo maalinkii shalay weerarkii ay qaadeen ugu dambeeyay markaasi Baydhabo ay la beegsadaan. dhinaca kale maamulka aadan madoobe, wasiirka amniga iyo gudoomiyaha degmada Baydhabo oo dagaalkii shalay ka hadlay waxay sheegeen in hadda kadib ciidanka lafta gareen ay markaasi yihiin koox fallaaga ah oo nabadiida si adagna markaasi loola dagaalami doono. shacabka ku nool magaalada Baydhabo oo aragtidooda ka dhiibtay dagaalka iyo sidoo kale isdiidooyinka siyaasadeed oo isku bedelay gacan ka hadal military waxay sheegeen in xalka uu ku jiro in la wada hadlo, miiska wada hadalka la isugu yimaado, dhinacyada ay isqanciyaan, heshiisna laga gaaro khilaafka. waxayna tilmaameen in labada dhinac cidda ka dhimaysaba ay yihiin dad reer Koonfur Galbeed ah, aanan loo baahnayn in markaasi la isku laayo bulshada reer Koonfur Galbeed iyo dhalinyarada soo koraysa ee mustaqbalka leh.